Wanaagsan saaxiibayaal sida u dhantiin meel kasta aad dunida ka joogtaan fadlan hadday tahay daawashada kugu horeyso channelka subscribe saaro si aad u noqoto daawada ugu horeeya mar walba intaa kadib sidaa ka warqabtaa maanta waxaa jira kulmadii UEFA Champions League maadaama ay tahay maanta maalin Talaado ah shaxdanna waa shaxda koowaad shax labaad ayaa jiri doonto oo waali ah oo run ahaantii idinkaba aad ila arki doontaan mar raba inaad kasii hordhaco tan laakiin waa shaxdii koowaad ama priority koowaad markasta inoo ah waxaan ugu horeysa Bayer Leverkusen iyo Club Brugge oo caawa wada ciyaarayo marka Bayer Leverkusen maadaama ay koox yara adag ay tahay waxaan rabaa inaan guud ahaan ciyaartan ka soo qaado inay Bayer Leverkusen ay caawa badi karto ama ay Brugge gali karto marka adiga aad aaminsan tahay inay kala badi karaan oo ujeedada 3 senti saaran inay badi karto 6 senti saaran Club Brugge aad aaminsan tahay inay badi karto $5 saaran marka laakiin aniga sidaas ayaan kugu soo xulay Porto iyo Atletico Madrid oo runtii kulamada ugu adag ee qayb ka ah maanta caawaan iraahday sidoo kale Porto iyo Atletico Porto ayaa waxaan u soo xulnay guud ahaan ciyaartan inay badi karto ama ay Brugge gali karto Porto ayaan u soo xulnay hadii handicap isticmaalno 12 senti looga badinayo noqonaysa Atletico waxay noqonaysaa 13 senti marka waa isku mid laakiin Porto aniga u xuleynaa inay badi karto ama Brugge gali karto caawa tan saddexaad oo big game ciyaarta la wada sugayo ay noqon doonto caawa UEFA Champions League ciyaaraha la ciyaaraha qaybka waxaa kamid ah Bayern Munich iyo Inter Milan inkastoo Bayern Munich caawa aan isdhihi kara inay ka badi karto kooxda Inter Milan Bayern ay tahay koox aad u dhaqaaqeeda u fiican yahay weerarkeeda iyo difaaceeda iyo qadkeeda dhaxana runtii ay aad iskugu xiran yihiin laakiin maadaama anaga waxayna ay tahay inaan gool ka rabno oo kooxa badanaysa aan dheheen waxaan ka soo qaadaynaa ciyaartan Bayern inay badi kartaan Brugge gali karto Bayern laga badi karo 90% lama aaminsano tan maxaan ku yiraahdaa afraad waa iyada naftirkeeda big game oo kale oo caawa jira Liverpool iyo Napoli inkastoo dadka qaar ay marka meelo badan hadaan soo qiimay aan ku arkay ay leeyihiin Liverpool badinayso haddana Napoli oo aan aragnay koox awood badan oo Champions League runtii sanadkan aad iyo aad ugu xoogan tahay balse ma dhaheeno way badinayso maadaama Liverpool naftirkeeda Champions League ku yara fiican tahay xagga horyaalka ka jiifta laakiin Champions League way ku fiican tahay Liverpool ayadana waxa handicap isticmaalna handicapkaas oo ah Napoli in aan looga badi karin maxaan ku yiraahdaa 2 gool Napoli in aan looga badi karin 2 gool 35 senti ayaa saaran waa yaab marka Napoli awood leh marka inkastoo away ay tahay ku qiimeynaa doono laakiin Napoli 2 gool in looga badi karin ayaan rajeynaynaa marka sidaas ayaan soo xulnay waa koox adag waa koox daafaceeda run ahaantii uu wanaagsan yahay weerarkeedana waa qatar laga yaabo ciyaarta inay caawa hal ku dhamaato ama 1 iyo 2 ay ku dhamaato kala tusaale waxa kale ku sii xiga Rangers iyo Ajax oo Rangers hadda koor Liverpool oo maleena inay 7 mar ku soo qabatay waliba iyadoo gurigeeda joogta Rangers oo Liverpool away ah maleena kooxda ku qabanaysa inay tahay 7 hadday sax tahay sax waa isoo dhaha marka Ajaxna run ahaantii naftirkeeda waa koox horyaalkeeda ku xoogan laakiin Champions League markii la taagan yahay xoogaa ma ku xoogano ayada marka waxaan leenahay maadaama labadan kooxood awood ahaan waxba saas is dheereen laakiin fiicnaansha hadii la dhaw waxa fiican Ajax marka maadaama away ay tahay waxaan saareynaa Brugge ama badis waxa ugu dambeeyay Victoria Plaza iyo Barcelona badi karto laakiin gool ayaan ka rabnaa waxaan Victoria Plaza naftirkeeda hayasin hadda koor waxa waaye inkastoo Bayern Munich ay tahay kooxda ku dhufanaysa 7 mise 6 balse waxaan waa iska ciyaar Barcelona mar way fiican tahay marna waa iska taqaana marka Barcelona waxaan leenahay guud ahaan ciyaartan Brugge ama badis ayaan u soo xulnay fadlan shaxda marka aragto daawo inaad daawato wixii ka saacidaysa inaad wax badan ka bedesho fadlan daawo shaxda kalena waa soo dhigi doona goor idinka arki doono koodkan tan waa tana guul ayaan isku rajeyna saaxiibayaal guuleysta